اي امس هابو اسكا هاجاجي لا اله الا الله shaqayso انا كل شوقي امس اسكا هاجاجي xaaskuna fol ها اوين دي هابو اي امس ده اوين اسكا جوج شاي weligaaba filka qasab toonfaran gamin qasab waaya taneer الباب كان كهر اركيدو اويسا oo maxay la ooyaysaa ولا غودي دونايو way soo baxsatay maxaa tiri la gudaa hal gudaday danteeda ku jirta maaha oo kaalay danteedu waa inay xanuunsataa danteedu ma inay curyaantaa diinteenaana amartay de ma ogtahay saameynta iyo khatarta uu arrinkaasi ku yeelan karayo nafteeda hindi ma ogtahay inta hablood naftooda ku waayay miskiintan jarha ka tuurina diinteenaana amartay diinteenaana amartay daliil ma haysaa may laakiin dhaqankeenu noona amray ma jeclaan lahayd in xubin jirkaaga ka mida lagaa jaro may ka fikir bal farahan ajaadka ku cunisid haddii lagaa gooyo waa xanuun xanuuno badan buu u keenaa ma jeclaan lahayd in ilkaha ajaadka ku cunisid dhulka lagaa dhigo way u curyaamaan haddaba ogow adigu ilkaha iyo faraha u dhiman maysid laakiin iyada xubintaa yara laga jarayo waa waxay u dhiman karayso dalmadan wuu ku adkeeyaa adeero iisa maxaan kuu gafay ogow intaad aqalkeena joogtid inuu qofna kuu imanin uu qasab kuu kaxaynin ilaahay buu leeyahay ka aqalkayga intuu igu imaado gabadha yar soo saar iga ilaah dagar baan ka aqaana yurubi idhigiisu markii imaadaanay gabadha yar qaadan doonayaan albaabka isku daba khabee aniga ay isuu dhexgelin dhigaha anaa dilaacinaya way ba ayay daawaciday la hadlaysa feerahaaga weli muraayad ma hor joojisay habo odagayga iyo walaalkay wax ka adag ilaahay mu abuurin dhigaysa hadaba aniga arrinkan adi uu kaawan yahay saaloonka iska fariiso buskudkaaga iska cun intaan anigu iyaga karbaashay war calool weyn baa kaa soo horeysay maxaa iska celin karaysaa calooshade six bag baa leeyahay adu two bag ilaahay baa mahadle oo laba libaax dhex dhigay yaraantii intaan nin ku dhagaroobi gaari horta maan kuu sheegay waa laba geesi oo dhaartay adu ku dhagroobi gaadhima anu waan ku dhagroobay haye dhagar qabay ordo horta inka albaabka naga soo eeg kolkol waxaan ka baqaa inay dhagaroobaan markay sidaa ii soo hor joogsadaanba nash kolleyba mid buuran ba ku jiri doona ma kaa an iida adu iyaarka yar la boodbood markaga siin albaabka soo eeg ninkaygu sabaaxadu xarifee kung fuugu ciyaari jiray waa ciyaaraysaaye kung fuuga aniga liguma gaaraba halkaa baan ka laagi doonaa walaalkayna waa aabbaha farfaarka alla gacanta xaraaraa iga haysa dagaal goorma igu dambeysay iga daya maanta inaan dhagroobaan ka baqaya dee dhagartii hadday iyaduba noo imanayso na soo doonanayso anagu maxaan samayn karaynaa albaabkaa la garaacaya amrin waa lagu doonaya waayo waa inama asxaabtaada من الله ونعم الوكيل ورجوك برتها أكيد دقاقين bartaa ka dhaqaaqin waa qososhay waa iska soconaysa ma xishoonaysid marka koobaad horta waxaa rajaynayaa in xalqadda maanta aad ka hesheen ood ku mabsuudeen ood ku jibbooteen ood ku khalkhasheen ood ku dawaqdeen ood ku mirqaanteen ay bas de naga aamus ayuun ilmuhu waalana haddaba muhiimaddu inta qosoluun lagu joojiyo maahe walaalayaal waa inaan isbaraarujino oon cilmi iswadaarsan waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu talagalnay in aynu ka difaacno hablaheena falalka foosha xun lee loo geysanayo
waxaynu ku soo aragnay xalqadaheenii hore aanba isku soo weydaarsanay cilmi badan oo ku saabsan gudniinta hablaha ra'yigii ay diinteenu ka qabtay falkan foosha xun leh kaalintay ka qaateen macooyooyinkeenu la dagaalanka falkan foosha xun leh kaalintii ay ka qaateen raggu la dagaalanka falkan foosha xun leh sida xeerkeenu uu ganaaxayo falkan foosha xun leh intaa iyo wax kaloo fara badan haddaba walaalayaal ogaada waxa aanu soo wada faa'iidaysanay waxba inooguma yeelan haddii aan la aamusnaano oo anakun ay nagu ekaato muhiimaddu waxa ay tahay in cilmiga aan kala faa'iidaysanay aan sii gudbino oo anakuna aynu ku dhaqanno haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oon ilaashano hablaheena